ra'yi ururin cusub oo ku saabsan doorashooyinka bisha Sebtembar ka dhici doona dalka Norway ayaa muujisay in inta badan dadkii qaybta ka ahaa ra'yi ururintan ay door bidayaan inuu mar kale uu hogaamiyo dalka ra'iisul wasaaraha iminka talada dalka haya ee Jonas Sture. Ku dhawaad kala bar dadkii qaybta ka ahaa ra'yi ururintan ayaa sheegay inay weli rabaan Jonas Sture oo ka socda xisbiga shaqaalaha inuu mar kale noqdo ra'iisul wasaaraha hogaamin doona dalka. Hogaamiyaha xisbiga Høyre Erna Solberg ayaa weli dhanka taageerayaasha xisbiyada midigta Norway waxa ay tahay qofta ugu cadcad inay ku guuleysan doonto xilka ra'iisul wasaaraha cusub. Inkastoo xisbiga FRB ee ay bahwadaagta yihiin kaga horeeyaan marka loo eego taageerayaasha xisbiyada sanadkan. Ra'iisul wasaare Jonas Sture ayaa sheegay in tirooyinka soo baxaya ee ra'yi ururintan ay tahay mid ku dhiirigelinaysa oo uu qalbigiisu ku haysto kuna faraxsan yahay. Dhanka kale, hogaamiyaha xisbiga FRB Sylvie ayaa markii ugu horeysay ra'yi ururintan ka soo dhex muuqatay dadka ugu cadcad ee ay u sharaxayaan taageerayaasheeda inay ku guuleysato xilka ra'iisul wasaarenimada dalka Norway doorashada inagu soo fool leh. Erna Solberg ayaa horey taageero uga heli jirtay codbixiyayaasha xisbiga FRB ha yeeshee waxay markaan taageerayaasha xisbigani doonayaan in ay xilka ra'iisul wasaarenimada dalka Norway ku guuleysato Sylvie oo ah hogaamiyaha xisbiga FRB halkii ay markii hore uga coday jireen Erna Solberg. Laakiin ma muuqato in xisbiyada kale ee midigta la ah inay codbixiyayaashooda taageero ka heli doonto sidii ay ugu guuleysan lahayd xilka ra'iisul wasaarenimada dalka Norway. Ra'yi ururin kale oo ay horaantii bishii May samaysay bogga lagu falanqeeyo siyaasadda Norway ee bolofpolis.no ayaa muujisay in xisbiga shaqaalaha uu celcelis ahaan haysto taageero gaaraya 8.25%. ha yeeshee daraasadan cusub ee la sameeyay ayaa waxa ay muujisay in ay taageerayaasha ra'iisul wasaare Sture ay ka badan yihiin 40% dadka Norwejiga ah. wuxuuna ra'iisul wasaare Sture sheegay inay tahay mid dhiirigelin leh balse ay tahay inay si adag u shaqeeyaan isagoo intaa ku daray inay hor yaalaan howlo culus oo ay ugu muhiimsan tahay amniga qaranka Norway ee mustaqbalka. Hogaamiyaha xisbiga Høyre ahna ra'iisul wasaaradii hore ee dalka Erna Solberg ayaa sheegtay inaysan ahayn wax lala yaabo in Jonas Sture uu ku horeeyo ra'yi ururinta ra'iisul wasaaraha maadaama uu xilka kula tartamayo laba musharax oo hal dhinac ka soo wada jeedo. waxa ayna intaa ku dartay in xaqiiqadu tahay in iyada iyo Sylvie ay wada haystaan taageero ka badan midda uu haysto Jonas Sture. waxayna carabaabaday in dadka Norwejiga ah ay intooda ugu badan ama aqlabiyadooduba ay doonayaan misna xiiseynayaan in ay doortaan ra'iisul wasaare cusub. ra'yi ururin midan la mid ah oo la sameeyay bishii May ee sanadkii hore ayaa waxaa ku horeysay Erna Solberg oo haysatay 44% taageerayaasha ama codbixiyayaashii ka qayb qaatay daraasadaasi halka ra'iisul wasaare Sture uu ka helay kaliya 31%. hogaamiyaha xisbiga FRB Sylvie ayaa iyadu sheegtay in xisbigeedu danaynayo inuu helo wasiirka waxbarashada haddii xisbiyada midigta ku guuleystaan doorashada soo socota oo la soo dhiso xukuumad cusub. waxayna ka gaabsatay ama ka meermeertay inay ka hadasho damaceeda xilka ra'iisul wasaaraha dalka Norway iyo doonista ay taageerayaasheeda la doonayaan in ay ku fadhiisato kursiga looga arrimiyo dalka Norway. halka ay wararka ugu door karoon idinkaga imaanayeen maanta waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.